مثلا النبي عليه الصلاة والسلام وحليه ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا حديث ابن ماجه حسن كا صدح صلاة دودة تاكاين لك مدحودة بما دافته مدنا أكسونو صلاة دمرك إنه دهنا لما أقبلين معناه موحوية وتسوع لنيسا مايا أجزاءت وقدي صلاة نمدي لقو قبسن ما يا آخر لقو ملا صلاة دي متكنين آخر أنت لقو سوى تاقل لورن ما يني كريم حي صلاة متكنين لكن ده قبصة شقورة ما أسعنين واحد ساعتين هذا شر ورصته واحد ساعتين لا هذا الصلاة لبا الصلاة أنت وده حيث تكفر ما قبلها صلاة كالدم بقدينا كام يدو dadka bar baa su'aal isweydiiya oniyo salaad waliba salaada ku xigta haday dambiga maydhaysa مثلا ramadaan ilaa ramadaan maxay maydhaysaa ama jimca ilaa jimca maxay maydhaysaa deetaadu mid yar oo naaqusaba ay hedo wax badan may maydhin markii horaad 10% iyo 5% iyo 15 marka haddaad isku jaabaysataa laga yaabaa inay maxay shantii waxoogaa maydho jimcii waxoogaagii soo hadhay badh maydho oo ramadaan deyntii soo hadhay badh maydho haddaad dadaalka badiso waa laga yaabaa inay isbiirsato لكن النبي يقول عليه الصلاة والسلام صدح صلاة دودة مدحودة لما دافيو رجل أما قوما وهم له كارهون بنبور نندط شوشوب سكاها يستو صلاتك يو أن رمين صلاديس وخطر دي ملاكا دولة دن يددن قصب كوها يستانا مدام أيانو مالين يدي دي صلاة قرى هل صلاة كيكو يستهدان وعمالين كأن أمة دان سكاف ضوبتينا ملا مداميو لكن حديث كناس كيسوح شيء من أما قوما وهم له كارهون ننكدد إمام النقضة يقول نعب وان ربن ولذلك أئمة مساجد يرقى مساجد التكية وحكا وحفيا عن إنه قلوب تددك إلاليه وددك وقف إرال لكيهن إنه النقضة محي قفك ددك تكينيه ومساجد inaan lagu haysaninun maxaa qorsa karma tiraahdaa maxaa tiraahdaa inaan iska afduubanine inay muslimku wada socdaan qulubtu inay wada socotaaba ka muhiimsan waxa kale oo dhan sida ogeed buu nabigu yiri wamra'atan batat wa zawjuha 'alayha sakhitun gabadh hooyatay iyadoo ninkeedu u cadhaysayayna wax laga aqbali maayo idan dumarka muslimiinta waxa saaran inay isku dayaan zawjkeeda inay raali geliso wamra'atan 'asat zawjaha hatta tarji'na xadiis kala sheegay ka saddexaad waxa uu nabigu sheegay calayhi salaatu wassalaam ka saddexaad waxa uu nabigu sheegay waa khawaari mutasaarimaan laba walaalo oo kala iska laalaada xadiiskii muxuu sheegayay qof kasta oo ilaahay rumeeya qof kasta oo لا يشرك بالله شيئا marka acmaasha ilaahay loo bandhigo khabiisaha iyo meelahaas oo kale in ilaahay dambiga dhaafo xadiiskii sheegay saxiixaynka ku yaalay laba mooyaane buu nabigu yiri labadaasi waa kuwe laba is haysta iyaga waxa la yiraahdaa andira haadayni hatta yastaliha labada iyaga dib iga dhiga baa ilaahay yiraahdaa intay ka heshiinayaan idan akhwaan mutasaarimaan haddaynu isu wada cadhaysanno iska laalaadno cibaadada inaga xumaanaysa دين ربنا إن عبادته إنه عند الله مقبول نقطه وين هذا قف قلب السليم لا وين هذا هاته قف كمؤمن كاهي نبي الله إبراهيم حكود عيسني آخره وحويدي سني قلبي سينا الله كردقا محي قلبي عافي ما تقبه سيدا وجد وحيابة جرى عملكي إن جبرينية أما إن عند الله مقبول نقضح حمينية مثلا القرآن كإلهي وحلي يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وركوا إيمانك لقاها لا يوحى إلهي درتي ولبح دين أذية نبئيو قالت يا جسها كبريننا هذا أنت دوح بحسهم كذا هذا شو نكبرها سفي عنه قال قال هذا بيل بانو درمال كستل عكشو كتاباسي هيسكبريني وادرتي أجر بعد دونيسا إلهي بعد لباع مشترينيسا قف كان ماها قف كان وحكي دونيسا هذا الدنيا كدونيسا وهالكيت وتسلا ده إسلام مركزا كوا بالجدو لكن أصل كقف كمؤمن كوام حيوحوا بحنا أيوه إلهي بكل تجاري سنة وحي لم يتلعقت بنك كدقته مركز بنك كتكتا أكاونت كالعكوش وبتو سمر بيسني ده نادو كله ده أكاونت كوش وبتاي
tanaad baxsatayna waxaad rumaysan tahay accountka aakhira inaad ku shubtay saa daraaddeed waxaad rumaysan tahay inay tahay kayd adigu aad kaydsatay cid kale waxaad siisay maaha qofka muslimkii saas uu fakeraya waxaan ula baxay inay tahay kayd uu isagu meel dhigtay haddaba kaydkaaga ha iskaga burinin baa ilaahay leeyahy inaad sheegto oo aad mani aad dadka ugu gallad sheegato amase adiya iyo dhib inaad ka dabageyso sida awgeed waxaan leenahay ayuha alaxiba acmaasha in laynaga aqbalaa maalan nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ninka caraaf u taga kuwan faalfaaliya waxaa kale rumaysta wuxuu sheego maxay xadiis riwaayaadka qaarkood waxay sheegayeen inaan 40 yowman maxay camalkiisa la aqbalin oo 40 cisho camalkaaga la aqbali maayo haddii la yidhaha miyaad salaadaha iyo waxba iska dirisa maya waxba waad tukanaysaa waayo dimadaadaad rabtaa inaad beri yeesho tajzi'uk qadaa lagugu yeelan maayo laakiin dee ajarkii la rabay ayaad iskaga lugoynaysaa halkaad ajar ka heli lahayd ayaad ajarkii nuqsaaminaysaa haddaba ayuha alaxiba waxaynu u baahannahay cibaadaadkaynu ilaahay ula imanayno subxaanahu wa tacaala inaynu xumaha ka ilaalino inaynu qurunka ka tirtirno inaynu maxay qalbigeennu uu noqdo qalbi soo jeeda waayo maa fi lquluub xataa inaha la aqbalaya waxay ku kala gedisan yihin baynu waxa qalbiga ku jira oo maalan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay dirham ayaa wuxuu ka badiyey sabaqa dirhamun 100,000 dirhamin buu nabigu yihi hal dirham oo sadaqa loo bixiyey ayaa ka fadli bato ka dheereeyey 100,000 oo dirham buu nabigu yidhi 100,000 oo dirham si uga badanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay culammadu leeyihin dirhamkan uu sheegay maalan markaad soo qaxaysay ama markaad soomaaliya ka qaxdeen adigoo aan waxba haysan oo $10 sita xoolo waanay kaaga dambaynin oo waddana aad garanayn joogo dee 10kan la xajeclo ka badan boqolaalka kuwa haystaa kaaga jira haddii aad mid 5 u dhiibto waad la naf qaybsatay markaa weeyaan nin balaayiin iska haystaa hadduu in yar ka xoobiyo uu mid u tuuro 100,000 isaga agtiisa $5 qiimahay kugu joogtay kuma joogaan maxay boqolaalka kani idan xaaladda aad ku sugantay iimaanka qalbigaaga ku jira ilaahay sidaad u weynaynayso aakhiro sidaad u hunguraynayso waxaasaa waxay qiimo u yeelayaan cibaadaadkaad la imanaysaa intay leegtahay markaa camalka lama yaraysto dirham ha noqdo ama 2 ha noqdo ama ha ka batee camalkaaga ha yaraysanin xataa waxaa axaadiistu tilmaamaysaa tawxiidkeennu sow laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ma wada lihin dhammaanteen sow dad muslimiina ma wada lihin xataa laa ilaaha ila allahdeenu isku qiimo maaha aakhira markaynu tagno isku qiimo maaha waayo axaadiista nebigu waxay sheegaysaa calayhi salaatu wasalaam qaar aakhiro tegey oo tawxiidsaday laakiin dembiye galay dabeetana dembiyadii ay sameeyeen lagu ciqaabay oo cadaabka galay laakiin cadaabka ku waari maayo horta laa ilaaha illa allah mar kasta waxbay taraysaa waayo cadaabka inaad ku waarta habay kaa ilaalinaysaa gaalkaa cadaabka ku waaray qofkii muwaxidka ahaa xataa hadduu cadaabka galo wuxuu ku jirayaa maxay muddo laakiin dee muddadaa ilaahay garanaya 1 milyan oo sano haddii lagu cadaabo ka war haddaad tidhaahdo koley waad tawxiidsanaysaa naarta waad ka soo boodiye boodisteedu ma fududa marka walciyaadu billaah ilaahay baan ka magan galaynaa laakiin waanad ku waaraynin waad ka soo baxaysaa aakhirkii waxaa kaloo uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam mid inta la soo taago la keenayo 99 sijilla 99 fayl baa la keenaya oo dunuubuu galaya kan ma gashay kan ma yaa rabbi haa buu leeyahy waa qiranaya waxaa la leeyahy wax xasano aanu kaa dulminay miyaad garanaysa wax xasanaadkaagii maqan oo aan meesha kuu oolin miyaad garanaysaa may buu leeyahy yaa rabbi xadiisku wuxuu leeyahy ilaahay baa wuxuu ku yidhaahdaa xasanaanu kuu haynaa weli mid baa kuu hadhay dabeetana bataaqaa la keenaa buu nabigu yihi waa kaadh sijillaadka waxaa la yidhi mashriq iyo maqrib bay sijil weliba uu taxan yahay tani laakiin waa kaadh waa bataaqaa la keenaa bataaqadaasi waxaa ugu qoran tawxiidkiisii dabeetana waa la saaraa miisaanka wuxuu xadiidkaasi tilmaamayaa inuu bataaqadaasi waxaan oo dhan ay ka cuslaan doonto yacni waxaa meesha ka cad dadkii wada tawxiidsaday inaan tawxiidkoodu isku qiimo goynin qaar dunuubtii ay galeen ee zinadii iyo rabshadihii iyo wixii ay galeen inuu
wada maydhi kari waayey dabeetana in naarta lagu soo daahirinayo. qaarna waxaa la tilmaamayaa tawxiidkiisa culaysku leeyahay ilaahay siduu u weyneynayay uga cabsanayay ee rabbi qalbigiisa u deganaa tawxiidkiisaasi inuu miisaan weeye oo dunuub badan uu la degayo tawxiidkaasi. haddaba waxaynu leenahay acmaasheenna waxay u baahan tahay kow atanqiya, intaynu nadiifin karna inaynu nadiifinno, waxaynu cunayno inaynu xalaal ka dhigno, waxaynu huwanay inaynu isku dayno inuu xalaal noqdo. dadka inta badan how much you earn un baynu isweydiinaa, waxay doonaa kugu soo galo. laakiin waa mushkilad. waxay ahayd inaad isweydiiso maxaad xalaal xoogsatay. waxa kale aakhira iyo adduuntoona anfac ma leh. maxaa xalaala si cibaadaadkaaga aanay u qarribin, si diinkaagu aanu u xumaanin. xalaasha inaad ku dadaashid, ducadaadu si ay cinda allahi maqbuul u noqoto. waxaa habboon markaa acmaashaynu samaynayno o dhan sumca iyo riyaa iyo istus iyo ismaqashiin iyo waxaasoo dhan inaynu ka dahirno, inaynu ka dhigno acmaal lilaahiya, ilaahay dartii un waxaad u samaynayso waanada cid kale waxba kaga raadacaynayn. waxaynu u baahannahay acmaal aynu aqoon u leenahay oo marka hore shuruudu sixa soo hesha oo cinda allahi maqbuul noqon karta inaynu noqonno. walidaalika ayuha alaxiba, qur-aanku wuxuu inooga warramayaa dadkii saalixiinta ahaa iyo ambiyadii oo iyagoo camal wanaagsan samaynaya warwarku uu hayo. nebi ibraahim oo kacbada ilaahay dhisaya ilaahay ka warramay, iyo nebiyullaahi ismaaciil. waa laba nebi oo isdhalay. shaqaday wadaanna waa maxay? waa inay kacbada dhisaan. waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyti waismaaciil rabbana taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim rabbana wajcalna muslimayni laka wamin duriyatina. waxay leeyihiin oo ilaahay ka warramaya, waxaad dadka uga warrantaabaa ilaahay leeyahy markuu nebi ibraahim qawaaciddi seeskii guriga baytullaahi alxaraamka seeskiisii markuu dhisayey isaga iyo nebi ismaaciil, isagoo dhisaya ilaahay kacbadiisiibuu wuxuu haddana leeyahy rabbanaa taqabal mina, ilaahu naga aqbal. idan xataa haddaad masaajid dhisto ilaahay bari in alla kaa aqbalo. haddaad dhisto la aqbali waayo dee waxba ku tari mayso. laakiin asalku waxa weeyaan in maxay aad rabbi weydiisata inuu kaa aqbalo. ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa maryamo hooyadeed, nebiyullaahi ciise hooyadii maryamadaa hooyadeed waa nebi ciise ayaydii. islaantaasi islaan saalixada bay ahayd. id qaalat imra'atu cimraana rabbi inii nadartu laka ma fii baطni muxarara fataqabal minii inaka anta asamiicu alcaliim bay leedahay. ilaahayow wixii maanta calooshayda ku jira bay leedahay adaan kuu gaar yeelay. ilmihay umuli doonto bay waxay u gaar yeelaysaa inuu ilaahay gurigiisa ka shaqeeyo, shaqo kale inaanay u diri doonin. fataqabal minii bay haddaba leedahay, ilaahu iga aqbal, anugu saasaan yeelayaaye rabbow iga aqbal bay leedahay. waxaa qur-aanka ilaahay inoogaga warramayaa nebiyullaahi ibraahim abulambiyaa. nebiyullaahi ibraahim oo ilaahay baryaya, wuu tukanayaa, ilaahay buu waxaanu weydiisanayaa salaadda mid ooga in rabbi ka dhigo. salaadda mid tukada maaha, mid ooga. oogistu yacni waxa weeyaan salaaddu waxay u baahnayd oo dhan mid u dhammeeya. rabbi ijcalnii muqiima asalaah wa min duriyatii rabbana wataqabal ducaa buu leeyahy. ilaahayow waxaad iga yeeshaa mid salaada ooga, aniga iyo dhashaydaba ilaahu ducadaa iga aqbal buu leeyahy. ducadu rabbi raba inuu ka aqbalaa waa maxay? salaadu inay noqoto salaad maqbuul cinda allahi noqonaysa. idan ayuha alaxiba, alambiyaa wasaalixuun hadday sidaa u cabsanayaan oo rabbi weydiisanayaan inuu ka aqbalo, innaga maxaad u malaynaysaa marka? sidaa ogeed waxaa habboon qof walba cabsidaasi inay ku jirto. waxaa habboon qof waliba inuu isku dayo camalkiisa inuu barax tiro, uskaga inuu ka reebo, inuu dhilo. waxaa habboon qof waliba camalkiisaasi inuu baryada ilaahay u badiyo in rabbi ka aqbalo. ilaahay inaad in badan barido in lagaa aqbalo. sidaa ogeed ilaahay qur-aanka qaar buu leeyahy qul anfiquu طawcan aw karha
lan yutaqabala minkum inakum kuntum qowman faasiqiin baa ilahay yidhi qul anfiquu bixiya baa la yidhi طawcan aw karha ama qasab ku bixiya ama idinkoo ogol bixiya lan yutaqabala minkum baa ilahay yidhi alla idinkama aqbalayo waa gurub munaafiqiin ahaa dabeetana waxaa la leeyahy xoolaha ama idinkoo ogol bixiya ama idinkoo aan ogolayn oo qasab ha laydinkaga qaado zakadii oo ha laydinka qaado lan yutaqabala minkum laydinka aqbali maayo waayo inakum kuntum qowman faasiqiin baa ilahay yidhi dul faasiqiina ba ahaydeen fisqigiina daraaddii looma aqbalayo wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ila anahum kafaruu biاllahi wabirasuulihi walaa yaatuuna asalaata ila wahum kusaala walaa yunfiquuna ila wahum kaarihuun maxaa loo aqbali waayey nafaqaadkooga waxay ahaayeen kuwa alla iyo rasuulba ka gaaloobay baa la yidhi salaadana waxay la iman jireen iyagoo caajisa waxa markay wax bixinayaan iyagoo necab bay bixin jireen idan ayuha alaxiba ilaahay wuxuu leeyahy afa aaminuu makra allah falaa yaamanu makra allahi ila alqowmu alkhaasiruun waxaynu u baahanay markaa ilaahay fadligiisa waan rajaynaynaa waa damcaynaa waa dadaalaynaa baryadeennu si ha badato nebi ibraahim muxuu lahaa isagoo tawxiidsanayu haddana wuxuu leeyahy wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam waa tawxiidsanayey haddana wuxuu leeyay ilaahayow aniga iyo intaan dhalay inaanu sanamka caabudno rabbow naga fogee buu leeyahy saalixiintu ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa inay cibaadada la imanaya habeenkii intay istaagaan inay tukanayeen haddana warwarka inay qabeen waaladiina yabiituuna lirabbihim sujada waqiyaama waaladiina yaquuluuna rabbana asrif cana cadaaba jahannam ina cadaabaha kana garaama aman huwa qaanitun aanaaءa alleyli saajida waqaa'ima yaxdaru alaakhira wayarjuu raxmata rabbi ilahay wuxuu leeyay miyay siman yihin ka habeenkii taagan isagoo sujuudsan iyo isagoo taaganba aakhiro ka cabsi qaba ilaahay naxariistiisana rajaynaya ilahay naxariistiisana lagama quusto ilahay naxariistiisana waa la rajeeyaa waladii aطmacu an yakfira lii khati'atiida waa la baryaa oo waa la rajaynayaa cabsidana waa jiraysaa markaynu mas'aladan fahamno waxaa fahmaysaa la socota qofka muslimkii mahmaa camil in camalkiisu la yaraado inaad alla agtiisa ka taagin oo moodin inaad wax badan qabatay inaad isku daydo inaad ilaahay weydiisatay inuu kaa aqbalo inaan guruur iyo cujbi kugu dhicin acmaasha qalbiga ku dhacdee ah alcujb inaad isla weynaato ama alguruur inaad adigu ismadax martidba oo istidhaahdo wallaahi waxaa tahay adigu nin wadaad oo masaajidda ku ag xidhan oo dadaal badan oo adnaad jannada isasiiso dadka kalena aad naarta ku gurtaa waxba kama jiraan dadka ciddii alla wax ka aqbalay ilaahay baa garan waxaynu se u baahannahay qof kasta oo rabbi si dhaba u garta wuxuu nimco siiyeyna gartaa camalkiisa uu la yaraadaa wax weyn kulama noqonayo walidalik baa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa caaisha waxay ku tihi ilaahay rasuulkiisiiyow adiga dembigaagii horiyo kii dambaba waa la dhaafaye maad iska nasatid habeen oo dhan intuu taagnaada nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa caguhu barareen gomadaha caaisha markaa waxay leedahay adiga dee dembigiiba lagaa dhaafiye maad nasatid wuxuu caaisha nebigu ugu jawaabay afalaa akuunu cabdan shakuura addoon mahadnaqa miyaanan noqonaynin ilaahay hadduu waxaasoo nimca i siiyey yaa rabbi thank you miyaanan odhanaynin ilaa waad ku mahadsantay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaa nebiyullaahi maxamed loo tilmaamay walaa tamnun tastakthir ay laa tamnun bicamalika calaa rabbik tastakhiru waxoogaaga aad shaqaysato ilaahay ha ugu manno sheegan baa la yidhi iyadoo ay kula badan yihiin weligaa ha iska dhaadhicinin wax badan baad qabatay haddaba ayuha alaxiba acmaasha in laynaga aqbalay maxaynu ku garanaynaa waxay culammadu yidhahdeen horta ilaahay baa og laakiin calaamaad baa jira bay yidhaahdeen haddaad aragto isti'naas la rajeeyo in alla ka aqbalay maxaa ka mid ah waxay yidhahdaan haddaad aragto cibaadaadkaoo cibaadaba cibaado kuusii furfurayso adigoo xagga cibaadada u koraya haddaad aragto
waa astaan fiican oo loo rajo qabo bay leeyihin in kuwii hore lagaa aqbalay. haddaad aragto adigoo dib u sii socdana khatar, adigoo dib u sii gurmayo dhanka kale u socda. sida ogeed baa ilaahay wuxuu leeyahy faama man acطaa waاtaqaa wasadaqa biاlxusna fasanuyasiruhu lilyusraa baa ilaahay yidhi. ninka bixiya ee alla ka cabsada ee tawxiidka rumeeya aakhiro rumaysta, kaas waxaa la yidhi fasanuyasiruhu waxaanu u fududaynaynaa tii fududayd. ta fududay waa diinka islaamka oo dhan. diinka islaamka oo dhami ilaahay qur-aanka wuxuu in badan ku sifaynayaa inuu khafiif yahay, inuu yuriidu allahu bikum اlyusr walaa yuriidu bikum alcusra baa la yidhi. ta fudud baa loo sii fududayn. marka adigoo xagga wanaagga u koraya haddaad aragto istabshir in shaa allah. waxaa laga isti'naasi karaa in wixii hore alla kaa aqbalayo. adigoo dib u guranaya haddaad aragtana waama man bakil waاstagna wakadaba biاlxusna fasanuyasiruhu lilcusra. ninka bakhayla ee kaaftooma, alle ka kaaftooma, ee aakhiro iyo wanaaggaba beeniya ama tawxiidka beeniya, kaana ta adag baa loo fudaydiyaa baa la yidhi. gaalnimada adag iyo macaasida iyo rabshadda kuwaasaa loo fudaydiyaa. ilahay wuxuu leeyay wayaziidu allahu aladiina اhtadow huda. kuwa xagga rabbi u hanuuna, kuwa hanuuna ilaahay hanuun buu u kordhiyaa. waladiina اhtadow zaadahum hudan wa aataahum taqwaahum. waxay culammadu yidhahdaan markaa ihtidaagaasi waxa uu tilmaamayaa qofkii acmaashii markuu isagu la yimi waxoogaa oo sii koraya haddaad aragto xagga khayrka u sii socda, wuxuu yahay qof alla hanuuniyey. marka waa qof acmaashiisii hore cinda allaahi wax la aqbalay ee u ekaatay. waxaa kaloo diinku ina baraya acmaal kastoo aynu samayno inaynu jabraanu naqs, inaynu kabno. iyo walilictidaar istikfaartu bay dhahay kahrat اlistikfaari lijabraani الnaqsi walilictidaari min sigari badaacatik bay yidhaahdaan. istakfuralaadu aada badisa macnaheedu waxa weeyaan camalkaaga goddaloolooyinku lahaabaad rabtaa inaad ku kabto iyo inaad ilaahay u cudur daarato. oo maalan salaada markaynu ka baxno maxaynu nidhaahnaa ugu horeeya astaqfir ullah astaqfir ullah astaqfir ullah. 3 goor in la istikfarsadaaba ugu horeysa salaada markaad ka baxdo. oo salaaddu waa cibaadee. dadku inta badan waxay dee yaqaaneen astaqfirullah in la yidhaha marka dembiga la galo, soo maaha. markaad cibaado ka baxday baa waxa lagu yidhi waxaad tidhaahdaa maxay astaqfirullah. waa maxay istikfaartanaad marka la imanaysaa? waxay culammadu yidhaahdaa waxay tahay lababa weyt. salaadaadu dee 10% 20% meelaha hadday dhacdo intii kale ilaahu ay qabsanin baad leedahay. ma wada hagaagsanayn wixii aan sameeyeye. rabbi inaanu kuu qabsanin oo aad istikfaarta ku kabtaa baad rabtaa. waxaad kaloo rabtaa haddii qof uu wax ku siiyo maalan oo uu abaal weyn kugu leeyahay, oo qofkii abaalka kugu lahaa baad maalinu yeedho waad casuntay ama waxoogaa yaroo hadyada baad siisay, laakiin waxaad ogtahay waxan aad bixisay inaanu u cuntamin, u qalmin wixii uu qofkani abaalku kugu lahaa. maxaa la sameeyaa markaa? cudurdaar baa lagu kabaade. yacni waxaad qofka u sheegaysaa adigu taagtaadii inaad soo dadaashay, laakiin inaanay intani ahayn maxay intuu mudnaa in la siiyo. marka waxaad leeday waa ka cudur daaranaynaa dee wixii kuu cuntamayay kumaanan siinin ama wixii kuu qalmayay, laakiin uun waa intii aanu markaa waxa hadalkani waa ku kabisaad ku kabayso waxoogaagaad bixisay inuu maqbuul agtiisa ka noqdo at least, oo aanu odhanin ninkii aad abaalkaa ku lahayd ma intan buu kuuga abaalgudayaa, ayaad warka raacinaysaa. ilaahay abaal badan buu inugu leeyahy wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha. ilaahay wuxuu nimco ku siiyey ma tirin kartid. waa jirtaa bini aadamku ma cabasho waayo, laakiin iminka waxaa laga yaaba inaad leedahay sharcan waaye iyo lacag ma haysta iyo waa, laakiin waad caafimaad qabtaa. bal dhakhtarka tagoo dadka maalqabeenka ee buka weydii maxay u baahan tihiin. waxaa laga yaaba waxay hanti haystaan oo dhan inay siisan lahaayeen inay maxay wadnaha xanuunaya inuu ka kaco, laakiin adigu wadnahaaga iska bugbugle habeen iyo maalin baa bam kaa shaqaynaya markaad hurdiya markaad maba ogid wax weynba kulama aha. caafimaadka waxaan ku haysanaa waa gaajoonayna abaad la soo taagantay.
yani markaad nicmada dareemi weydo inta yara nuqsaantee ku haysata unaad dareento. bini aadamku waa caynkaa. bini aadamku qof way adagtahay inaad aragto qof bini aadam intuu kuu yimaado wuxuu nimco helay kaaga warramaa. qof waliba waa bal warran marka tiraa wallahi maanta waxay ku dhacay moogtay buu ka bilaabaya. yaad ka ashtakoonaysaa ma rabbiga? qof waliba wuxuu wadaa un inta yar ee mushkiladee qabsatay ayuu ka warramaya. laakiin asalku wuxuu yahay maxay? nicmadaa badan ee ilaahayna siiyey inaynu ka mahadnaqo. marka waxa weeyaan salaada markaad tukatay waxaad leedahay ilaahayow wixii aad xaq iga mudnayd xaqa tuqaatihi lama imanin, intaasaan la imay ilaahu dembigayga dhaaf baad leedahay. istikfaartanaad la imanaysa macnaheedu waa caynkaa. cibaadaadkao dhan baa qur-aanku inoo tilmaamaya inaynu ku kabno in badanoo ka mid a. مثلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. عرفة ومaalmihii ugu khayr badnaaya oo maantoo dhan dadku waa bannaan taagnaayo ilaahay baryayey ayaa ilaahay wuxuu yidhi markaa carafo ka soo dareertaanna halka dadku ka soo dareeraya ka soo dareera dabeetana wastakfiru llaha istikfaarna ku dara baa la leeyahy. ayuha alaxiba, ilaahay qur-aanka wuxuu tilmaamayaa dadka saalixiinta ah kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun baa ilahay yidhi. habeenkii in yar bay seexdaan baa la yidhi. dad saalixiin oo ilaahay ka warramo jannada cuyuunteeda iyo nicmadeeda haystaa. kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun. maxaa lagu xigsiiyey? wabilasxaari hum yastakfiruun. habeenkii waa taagayin baa la yidhi. waqti suxuurka markay gaadheen salaada subax soo dhowdahayna istikfaartay bilaabaan. iyagoo caawo oo dhan salaad tukanayay ayay markaa waxay dib u bilaabaan maxay? istikfaarta. ilahay wuxuu ina leeyahy faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbik. bale nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam 23 sannadood buu diinta islaamiga inuu hirgeliya u dadaalayay, jihaatamayey. wax kasta oo qof bini aadami soo maro nolosha uu soo maray, hadday dhulkiisoo laga saaratay, hadday dagaaltay, hadday gaajatay, hadday rabshad, wax kastoo bini aadam ku dhaca ayaa soo maray. dabeetana ilaahay wuxuu ku yidhi marka aada guusha gaadho ee ilaahay nasrigiisu kuu yimaado ee aada aragto dadkoo diinta koox kooxu soo gelaya, istikfaarta badsa baa la yidhi. wixii aad soo shaqaysoo dhan istikfaar ka dabage. saa daraaddeed baa suuraddii u dambaysay qur-aanka soo degtay ka suura ahaan waa idaa ja, suurad isku dhan aayadaa soo degay iyada dabadeed, laakiin suura kaamila dabadeed ma soo degin. ilahay wuxuu leeyay idaa jaaa nasrullahi waalfatx. haddii uu kuu yimaado ilaahay guushiisa iyo furashada rabbi hadday kuu timaado oo wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja, oo aad aragto dadka oo koox kooxu soo gelaya diinta. bini aadamku markuu guulaysto muxuu sameeyaa? kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'ahu wuu kibraa inta badan. bini aadamku markuu nicmada hele wuu kibraa. bal aadanaha u fiirso, maalintii xorriyadda, maalintii caynkan maxay dowladuhu sameeyaan? xooggooda iyo ciidankooda iyo khudbado wada ah waa halgannay baa la qaadaa, de barhbadhaadhnaydaa la qaadaa, soo maaha? cid istakfuralaysato ilaahay u toobad keenta miyaa aragteen? nebi maxamed markuu maka furanayay, makadii laga saaray, wuxuu soo galay isagoo neefku fuushanaa dushiisa madaxiisa uu gaadhi ku dhadhow yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala isu dhuldhigaya. ilaahay wuxuu ku yidhi markaad guusha hesho, waa goorma? gaaloo dhan markaad ka guulaysato ee diinta ilaahay kor yeelo ee dadku ay diinta u soo galaan koox koox. awal qof qof baa soo islaamayay. wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja. aad aragto dadkoo diinta koox kooxu soo gelaya, markaa maxay samey baa ilaahay yidhi? maxaa ku xiga? fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba. ilaahay u tasbiixso adigoo xamdigiisa ku dheehaya. subxaana allaahi waa nafyi, waa ilaahay aad xumaa ka hufayso. alxamdu lilaahi waa ammaan, waa ilaahay oo aad ammaan oo dhan u sugayso. istikfaarkuna waa adigoo dacfigaaga sheeganaya. idan ammaan halkii u dambaysay weeyaan. ilaahay waxaanu cuntaminna inaad naqaa'is oo dhan ka reebtid, maxaamidda kamaal oo dhanna aad u nisbaysid, kadibna aad dacfigaaga qiratid oo tidhahdid anna waa toobad keenaya, anna waa istikfaarsanaya oo waa toobad keenaya. saasaa nabigii la faray calayhi salaatu wasalaam. walidaalika markay suuraddani ku soo degtay kadib wuxuu odhan jiray subxaanaka allahuma rabbana wabixamdik allahuma akfir lii, ayuu rukuucda iyo sujuudda iyo odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam. idan ayuha alaxiba,
acmaasha acmaal kalaa lagu kabaa. maalan maxaa layna yidhi soonkii markaa soontaan zakaatulfitri haddana bixiya. zakaatulfitrigaasi maxay keenaysaa baa la yidhi jabraani naqs, wixii ramadaanta dhexdeeda idinka dhacdhacay dunuub ama nuqsaan ku dhacay ku kaba baa la yidhi. salaaddii baad yara sahwiday, maxaa la yidhi ka dabagee 2 sujuudood aad ilaahay fooda dhulka u dhigayso waa jabraanu naqs, naqsigaagii baad dib u kabaysaa. soo duuduuba ayuhalaxiba, darsigaygani wuxuu ku kooban yahay markaa kow inta wax qabanaysaa yaan cujbiyo quruur ku dhicin, ilaahay baa og inta la aqbalay. kaasi waa mid. dadaalka inaad badiso oo haddii alla wax kaa aqbalo waxa la hubaa camalka kalena inuu kuu hagaagayo, adduunya aakhiraba inaad guulaysanayso. acmaashu marka in la aqbalaba inta kale alla sii fudaydiyaa, saalix ka sii dhiga. se waxaynu u baahannahay 2 halba inaynu ku dadaallo. kow qadiyat alcilmi inaynu ku dadaallo waxa waxaynaga asaxayaa. waa dhib 40 sannadood inaad tukanaysay ilaa haddana aanaad aqoonin salaaddu maxay ku burtaa ama maxaa lagu aqbalaa aad garan. waa dhib. mas'alat alcilm, camalkaad samaynayso inaad isku dayda aqoon inaad u yeelato. ka labaadna waa maxay? waxyaabaha camalka ama buriya ama nuqsaamiya ama u diida in la aqbalo inaad ka jafi kartid. isku daydo intaad ka jafi kartidba inaad ka jaftid. ka saddexaadna istikfaarta iyo tawaaduca iyo rabbi isu dhuldhigiisa inaad badsatid. ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala intaynu la nimayna alla inaga aqbalo. acmaasheenu cinda allahi tii maqbuula in alla ka yeelo. waxaa acmaasha burinaya in ilaahay subxaana wa tacaala inaga faydo. qalbigeenna in ilaahay subxaana wa tacaala nadiifiyo saafi ka yeelo. kuwa muslima oo islaamnimadoodu dhabta ku dhinta in alla inaga yeelo. sala allahuma calaa muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalam.